ورادان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان ربا إنان إدين سو قدبيو شيكا كالي ومر كالي سان إدين بلنقادي شيكوين كبتحانين نقون دونان شيكادن حوغا شيكا يعني أرماها إني دالينيرادا أما إلماها يدير مقلان أن أديدي جري أو شيكا قسوين أو قصلنا له قسانا له وحكو قادشانا له دعدانا إهيدو رب إهيدو دعدي إنان سو قدبيو أن كحشون جري أيا waxaan arkay dhacdooyin dhab ah oo dhaceen oo anigoo nool aan arkay qof bini aadan ah ama gaal ha ahaado ama islaan ha ahaado laakiin qof bini aadan ah baa xayawaan hawo ka qabanaysa oo u galmoon isma lahayn waxaan arkay wadanka Soomaaliya dhexdiisa inay ka dhacday oo xoolihii la dhaqanayay rag haweystay Afrikaankan kalena eeyba lagu arkay rag haweystay marka waxaan jeclaystay maadaama qisada ay qiso culus ahayd bal inaan soo gudbiyo anigoo maldahayo ama maqaar saaraya oo inta anshaxa ilaalinayo sheekadan qof weyn ayaa iskale ama qaangaar ah hadaad canug tahay ama cunug kadami mahadsanid waxa dhacday baa leeyahay hadda ka hor waxa jiray miyiga baa la degan yahay waa qoys keli ah ama jees gobolada Soomaaliya qaar jeesku waxay dhahaan qoyska kaliya anaga qoys keli aan dhahno anaga jees waxaan dhahnaa reerku waa jees weyn وجاسك ريرك وين ما نحنا لكن سيدا الدراع يدوق أنا عن أكل بدلنا الدراع عدات قارئ أو يقانان دوق أنا عن أبارتا أما حلق عدات كأنو نقارنه وحال اللي يرمرك قيس كان قيس كليجا أما جاسك وحككو ما يصدق قف هويا ويل كده يا عبيه دالي ويلك وحال اللي يرمرك مال ما كمده أيا واحد عادي هويا ده وحي راعدا أريجا هرتو arigana inta badan markuu barwaaqo joogo soo hirgalaa cidu imaada duhuradii aabahana wuxuu raacaa geela iyo dameero isku dhax raacaa wiilka wuxuu raacaa lo reerkan waa reer taajir ah oo saddexda caanaha macaan ka hodan ah wiilkii baa marka waxa la yiri wiilkii horto qisada sheekada waxay ku qurxan tahay inaan dado oo gadaal ka fasiro laakiin maadaama aan ka baqay dad qaar inay ka yar cararaan marka u horeyso waxaan si sheegayaa nuxurkeedii sheekadan waxay ku saabsan tahay labadan qof ee wiilkan dhaleen kadib ilmo ma dhalin wixii wiilka 18 19 buu wiilka marka jira qaangaar buu ahaa ilmo ma dhalin xanuun odayga ku dhacay oo uu naafoobay oo xibinka taranka ka naafoobay darteed islaantiisana si ay oga tagin waaga dumarku aad loo meehli jirin ay wuxuu ugu sheekay ragga inuu waxan oo dhan ragga wada qabo oo asay kali ahayn maalmaha kamid meel war ah ama weel ah isagoo maamadii ama hooyadii ay ka waraabinaysa ariga xoolo ay waxay aragtay nin asagana ari waraabsanayo oo qabeysanayo way u dhuumatay way aragtay xibinkiisa inuu caafimaad qabay aragtay ninkii bay la hadashay hadalaa dhaxmareen waxbay weydiisay shaydaan baa ka dhex adeegay islaantii ninkii waxbaa dhaxmari doona marka sheekada meesha kala soco wiilkii marka lo'di asagoo la jira maalin baa lo'di 4 neef ama 3 neef baa ka dhaleen wuxuu yiri marka weylaha lo'da hadii duurka laguma soo teegi karee weylaha laba qaad mid qaad reerka korkeeda meel coos la markii la keeno ayaa laga tagaa marka maadaama cidi uu soo dhawaaday ay wuxuu isiri cidi baad u soo dhawaatay hooyadan aminkan arigu way soo hirgelisay maad uu shah doonatid oo waarikow ama shah meesha ka soo cabtid wiilkii markuu aqalki sintiisa ama kadanka ama kaadka marayo ayuu nin ka dhaxalay aqalka maqlay uu naxay war aabaha geela aminkan kama imaan jirine maxay aminkan ninka meesha ka dhaxalay duhurka ayuu isiri ninkii rarada ama dufulka ayuu gees ka feeyday wuu fiiriyay masama ah meesha hool kale ayaaba ka dhacday oo odaygan uuna ka seenin nin Soomaali ah iyo nin kale iyo maamadii ayaa meesha oo nin aabihi aan ahayn iyo maamadii ayaa wax dhaxmareen welina dharkii meeynan xiran meesha waxba ka dhacay wiilka aad buu u naxay ismuunan tusin raradii ama dufulkii buu daday kabtii uu iska taxaba orod aabihi buu rabaa inuu arintan u soo sheego meesha geela daaqi jira markuu marayo oo uu geelina muu dhawaaqin wiilki uu geeli meesha daaqay maray geelina wali arkin ayuu shanqar maqlay geedka oohiyaha la yiraahdo dhulkan ana oohiyaan u naqaanay ama geedka toqotoqaha la yiraahdo dhaxdiisa ayuu wuxuu ka maqlay shanqar haduu u dhudhuntay oo fiiriyay odaygii oo asna dameer wax ka dayanayo ayuu arkay naxdin wiilki wuu fajacay warkan hooyaaba dhaantay buu yiri maadaama ay wax caadi ay sameynaysa oo khalad ah laakiin ay xoolo ay haweysan kabti uu iska taxaabay qisada marka macaankeeda halkan uu ka bilaabanaya
wiilkii islaanta hadalka waa idinka kala dhaafay islaantii wiilka ugu dhageystay markuu dhaqaaq yiri ayuu wuxuu ku yiri heblaay mar walba oon ku imaado duhurkan waan dhacaan beelay energy badan baa iga baxaya hilib ima siisid waxba ima siisid marka waxay tiri si kale oo kugu dhaqaaleen kara male odaygayga caaw markaan saxana bari subaxii baa waxaan ku dhahayaa xalay waan riyooday waxaan ku riyooday wixii wadaad oo inta naga soo galay xagga qiblada kitaab iyo khamiis qabo oon fariisiisanay kitaabkii quraan uu noo akhriyay diin cidda uu akhriyay ilmo awlaad aan helnay aan nasanay baan xalay ku riyoodaan dhihi bari casarkii 10 saac inta cidda ka soo galbay tiri odayga geel ka soo tag baan dhihi wiilka markii intii uu maqlay uu sida odaygii hadii arinta uu tagay muxuu u sheegi odaygii baa wax kale ku dhex jiray uu iska tagay wiilkii loodii buu soo xareystay habeenkii waa la bariyay waaga haduu bariyay hooyadiis wixii bay duqi oo la soo kahimatay subaxii aroor horaba saas miyaa dhacdaha waa diyaar aniga geel waan ka soo tagay maanta galabta aan isku imaano galab dheer yuduqi geel ka soo tagay wiilkii loodii buu ku soo yaradahay 12 saac wixii ninna aqalka ka gunuunacaya no kale waxba ma ka saynay waa jahil kitaabna wata been ah hooyadii iyo aabihina ay neef maqaarka ka bixinayaan ay wiilka imaaday oo warankiisa wato ableydiisna ay u xirantay waxa la yiri hooyadii iyo aabihiiba lama hadline aqalkii hortiisi ayuu waranka ku surtay wiilkii intuu ku surtay oo afraaraca ama afdadka saa iskaga qabtay ayuu ninkii indhaha ku cadeeyay baa liir ninkii oo naxsan yaa adeer haye ciidan diin u akhrinayo ha wax buu dhahay adeer dhageyso yiri haye waxaad sameeyay aabahay uu ogi haye inaad hooyadii u daba marto uu ogi haye wuxuu yiri ninkii iga baxsanina aqalka albaabkiisa ama ilinkiisa ii fariisay meesha mar leed daro intuu tuurida saa u qabtay ninkana de waa nin khaldan oo wuxuu sameeyay og yahay burgololka ama doxirka ayuu goostay oodi yu jiray orod buu istaxaabay odaygii ordi oo naxsan baa wiilka ku soo orday aabo maxaa dhacay yiri wadaadku wuxuu ku yiri jilki ilmaha idin diiday ayaa aqalka ka booday aabaha waranka ay soo gaarsiiyay yiri aaba waranka hooye wadaadka gaarsii odayga oodi buu shalaq iska siiyay odaygii buu ka daba fakaday gadaal haduu soo fiiriyo wadaadkii odaygii oo waranka la saaran ayuu arkay mageed buu ka laxan labada way isku daba maqayn hooyadii buu imaad hooye haye aaba waxa sameeyay uu ogyahay haye ninkan iyo aad waxa dhax maran uu ogyahay waxaad sameen cidda hadan ku dhex dila magbaal ii qabsan buu yiri markuu cidda ka fogaado ninka soo dil rabaa haye markuu soo socdaan adu ku dili doona haye talaan ku siin haye hooye maxaan falay tirway baroorat cidiina intay deganeen meel heblo orod sheekada waan soo koobahaya saacadaha daqiiqadaha waan koobahaya cidihiina aad raabtigay u tag laba nin ka soo wado ii soo noqo hana seexan caaw isla caaw soo noqo wiilku uu kacay neefka ariga ah uu nus goostay geel uu soo xareeyay lo'du soo xareeyay ariga uu soo xareeyay hilibku habeenka iska cunay 6 saac habeenimo odaygii oo xiiqay oo daalay oo naf ah ayaa amin dambe oo meel dhiigimo meel kale aan aabo waan dhintay hooyada aw biyaha ii kuleesay ma ninjin eri baan gaari karaa ninkii waan gaari waayay wiir hooyada aw hooyo waxaad sameysay ogtiiray reebtigeed bay aadahay waxay tiri geed dameer lagu isticmaalay aniga lagu isticmaalayo tagtay hooyo saas ku maqantay duqina daalki intuu ka baxay buu wareer galay waaga markuu soo dhawi oo aroor ayte cidii saanti ka dhacday isla markii way soo noqotay ma habeenimay tagtay aroornimo way soo laabatay waxay tiri ilaa hadda hal iqaado abtiyaashi wiilka markay hooyadii keeneen iyo hooyo xagga fariisa maamada daal bay naflata duqi daal buu naflay abtiyaashi wado magaalada ciduu ka bixiyay xir abtiyo ana arintan ii daa waa mahadsantiin hilibkan cuna aan idin kariye shahan hooya iska taga abtiyo waa maadyartooda waxaan qaban waysaa ma abti aan ii daa hooyadii aabihi ku soo dhax noqday hooyo ma ku noqon ilaahayo adaan wiilka dhale ilaahu hadaan ku noqdo adiga ka qaad ilaahu kuma noqon ma oga wixii sameeyay aaba adi ma ku noqon aaba ilaahu hadaan ku noqdo adaan wiilka dhale ilaahu aaba iga ka qaad dib dambe ugu ma noqonay sheekada cidi sidii bay nabad ku noqotay wiilkii ijaar buu qabtay xoolihii buu raaciyay odaygina waxa la yiri muu khaldaneeno xibinka haduu qalloocdo dadka Soomaaliyeed hore kuma maahi jirtay gar haday qalloocatan walba waxaas waan ba toosiya geedka haduu qalloocdo dameer baa lagu toosiya islaantana ma khaldaneeno odaygana waalay oo waxaan wuxuu yiri dad rag oo dhan baa qabaayo maalin u beenin qabaysan aragtayo bal way ka wardoonaysay sidaas iyo qisada ku dhacday maadaama qisadaas aan muddo dheer damcina soo gudbiyo la xishoonay maanta iga ahaatay inaan soo gudbiyo waa idan salaamay waa walaakin Cabdirasaaq ama waa ka baxay sawirka iga dambeeyay waad ogtiin waa sawirkaygu un waa idan salaamay dad baa dhihi doona yaa way sawirkaas soo weydiin doona waan ogahay taas way aan u sheegahayo aad baa idin salaamay.